kusoo dhawaada channelka Product Globe oo idinka imanaya wadanka China magacaygu waa Abshakuur Umar channelka waxaan kusoo gudbiyaa qaabkii aad China wax ku soo dhoofin lahayd qaabkii aad Alibaba wax ka iibsan lahayd businesska China ganacsiga China dhaqanka China economiga China wax kasta oo China ku saabsan waxaan ka codsanayaa fadlan haddii aad channelkan ku cusub tahay inaad kambalka furtid oo like share subscribe si aad ula socotid muuqaalada soo gelin doono bartaydan YouTube muuqaalka maanta aan wada xaweyaan ku saabsan qaabkii aad maxay haytoy iskaga hubin lahayd qofka Chinese-ka ee alaabta ka iibsanaysid maanta waxaan kula wadaagayaa qaabkii aad isaga hubin lahayd Chinese supplier-ka aad alaabta ka gadanayso sida brandada waaweyn ee Nike sidoo kale loo yaqaano Adidas brandada waaweyn ama brand kale oo waaweyn iyagoo aan China iman sida isaga hubin lahaayeen Chinese supplier-ka baan kula wadaagayaa soo qaadaa adigoo gurigaaga iska fadhiya meesha doonta ahaato haday wadankii noqoto haday qurbaha noqoto oo doonaya in aad ganacsi samayso oo aad ka adeegato Alibaba ama platformada kale ee laga adeegto adigoon alaabtii iska arag oo sample-kii arag adiga oo aan warshadii soo tagin face to face ama production line-kii waxa sida loo sameeyo aan soo fiirin ama soo arkin adiga oo hadii baa lidibkeeda leeyahay aanad urinayn product-kii waxa laga sameeyay haday noqoto boorsooyinka leather-ka oo kale aanad urin kareen ka soo qaad fiidiyogan dhamaadkiisa waxaad kala bixi doontaa ama waxaad xagan ka tagi doontaa biidnillah adiga oo garanaya qaabka la iskaga hubiyo warshada inay sax tahay in kale in sidoo kale product aad raadinayso ay ku sameyn karaan iyo kale number 3 inay yihiin trustworthy amaba in lagu kalsoonaan karo oo ay yihiin company weyn oo aan reputationkiisu uu fiican yahay oo aan waxba dhacayn iyo number 4 oo orderka sidii aad u rabtay inuu kugu soo gaari doono iyadoo aan wax qalad lahayn intaas oo dhanba waxaad awoodi doontaa adigoon China iman oo gurigaaga iska fadhiya dhowr sano ka hor waxa igu dhacday inaan supplier helo aan ka helo online platformkiisu aad buu qurux badnaa website-kiisu aad buu qurux badnaa product-kiisu aad buu qurux badnaa sample-kiisu aad buu qurux badnaa sample-kii la soo diray aad buu fiicnaa laakiin maxaa dhacday markii aan bulk order aan dalbaday amaba aan dalbaday order aad weyn in ay igu dhacday waxaan filan waayay oo ay igu qaadatay bilodan sidii aan u maareyn lahaa ama sidii aan u ogaan lahaa wixii ka qaldanaa orderkaygii been markaa uga hortagay in mistake-gii ama wixii igu dhacay oo kale aanay igu dhicin waxaan sameeyay verification wax loo yaqaano verification waa maxay verification in aan daba galo ama auditing ku sameeyo amaba aan soo saxo waxa weeyaan supplier words supplier words wax la yiraahdaa waxa weeyaan waxyaabo badan oo ayaa soo hoskelaya haday noqoto license-kii company-giisa haday ay noqoto waxyaabo badan oo jira quality control waxyaabo badan shahaadooyin badan baa jira runtii marban ka hadli doona insha Allah markan kuleeyahay supplier verification haday noqoto qaabka loo verify gareeyo ama loo hubiyo warshadii hadaad garanaysid oo ka fadhiisato runtii supplier-kaas kama baxsan karo waxaan ka wadaa oo iska ka ilaalinayaa xulay qofkan wixii uu fahansan yahay kuguma soo degdegayo taas waa number 2 arrinka cajiibka aan kula wadaagaya waxa weeyaan sidee hadaba verification ugu sameyn kartaa ama aad u hubin kartaa license-koodu inuu sax yahay waxaad sameynaysaa ma odhanaysid license soo dir oo wax laga yaabaa in ay ku soo diraan hadduu doono mid dhacay ama mid magaranaysaa aan Chinese-na dabcan uu ku qoran yahay daydku baa la fahmaya maxaad sameynaysaa waxa jira waxaad leedahay trigan khiyaanada yar aan kula wadaagi doono runtii aad u dhow waxaad leedahay waxaad ii soo dirtaa license-kii company-gaaga adiga oo ku soo sawray daydka maanta China waxa jira application la isticmaalo oo haddii baa lidibkeeda leeyahay daydka iyo saacadda maantaba iyo maalintaba lagu qaado si wixii ay real u tahay anagu China waan isticmaalnaa kulley wadankii wax laga yaabaa inaan garanayo application-ada laakiin isagu garanaya waxaad leedahay I need to see the date and the time and the year inaad maanta ii soo qaadaan rabaa baad leedahay taas waa qodob waxaad leedahay license-kaaga waxaad soo sawirtaa isaga oo gidaarka ku dhagsan gidaarka company-ga wall oo garanaysa wall isagoo xagga ku dhagsan soo sawir daydkii maantana ku soo sawir company Chinese name-ku waa muhiim arrinka labaad ee aan kula wadaagayo waxa weeyaan company-gan aad ku aragtay ama Alibaba ama platform kale Chinese name-kiisa waa laga maarmaan in aad tirahdid ii soo sawir Chinese name-kiisa ayo hadhow marka ay noqoto hadii ay waxa weeyaan ay wax dhacaan amaba waxay weeyaan ay demokrasa wax weyn dhacaan in lagu dabageli karo way number 3 waxaad sameynaysaa waxaad iska hubinaysaa location-kooda sameynaysaa location-keed weydiinaysaa location-kii markaad weydiinaysid 4 qodob baa laga baahan yahay waxaad tiraahdaa video iga soo duub warshadaadii markaan kule location-ka weydii supplier-ada ama trading company-ga wax loo yaqaano boqolkiiba 80 kuma ganacsada boqolkiiba 80 ma joogaan warshad
waayo waa trading waa supplier haddaba maxaad ku hubinaysaa in warshad sax tahay waxaad leedahay video baad soo duubaysaa editing ka daa wax kasta ka daa video date-ka maanta amaan rabaa oo uu kaaga soo duubaya production line-kii xaggii alaabta lagu sameynayay xaggii raw material ku yaaleen laba waayo warshaduhu waxa u shaqeeyaan warshadu marka aad booqatid meesha ay degan tahay ilaa 5 dabaq warshadaha dhexe 5 dabaq bay degan yihiin kuwa sii waaweyn bay ka badan yihiin laakiinse warshadaha yaryar oo iska dhexe 5 dabaq bay degan yihiin 5ta floor waxa weeyaan cutting-kii alaabtii lagu jarjaray waa storage-kii meeshii lagu keedinay meel waxa weeyaan production line-kii xaggii lagu sameynayay meel waa haddii baa lidinkeeda leeyahay research and development-kii kuwii design gareynayay meel waa office-kii intaba waxaad leedahay soo aad u hubiso inay tahay warshad saxa waxay igu dhacday in hal mar hore aan la xidhiidhay warshad nin iskaga kedhigii warshad kadibna markii aan weydiiyey qodobadan soo socda aan ku iri iga soo duub warshadaada production line-kii xaggii alaabta lagu sameynayay office-kii wax walba ay ku adkaatay inuu soo gudbiyo cadaymihii kadibna aan sidaa go-aankaga gaadhay inaan faraha ka qaado sababta aan ogaaday inuu ninkan yahay camera amaba isu daya inuu dhaco sidoo kale waxaan baraarujinayaa haddii lagu idhaahdo lacag soo qadim iyadoon orderkaagii magaranaysaye lagu sameyn dabcan orderada marka la sameynayo 30% baa la iska qadimaa deposit laakiinse had ka hor waxay ku dhacday in warshad aan isla booqo aan ku dhahay alaabta rabay ma haysaa ninku markaa trading company buu ahaa trading company-ga runtii aad in la iskaga ilaaliyo ayaan boorin lahaa sababta ninkaas wuxuu isu dayay inuu dhaco markaan ku yidhi warshadda locationkeeda soo dir wuxuu igu dhahay ma soo dirayo maxaa dhacay baan ku yidhi lacagta soo dir buu yidhi anuguna jecel intaasaan joogaa muddo gaadhaysa 10 sano oo wixii baan fahansanahay alxamdulilah marka waxaan ku yidhi lacag ma helisid ma lacag la isku qadimo xaggaad ku aragtay baan ku okay mar raba inaan sheekadiisii ku dheeraado ninkii xaggii baan kaga gudbay waxaanan ogaaday inuu ninkaasi ahaa nin dhacayay oo muhiima ayaan rabaa inuu baraarujiyo waa number 4 waa qodobka 4 sideed ku ogaanaysaa inay warshad tahay waxaad ku ogaanaysaa waxaad hubinaysaa ood weydiinaysaa sanadkii ama bishii imise unit ayay ka soo saaraan productkan ama shaygan ama itemkan sidoo kale ma hayaan itemka aad u baahan tahay ama wax u dhow ma hayaan ama hore ma u sameeyeen sidoo kale waxaad weydiinaysaa fiidooyo hore oo kastamaro hore maxay ahaytoy ay ka duubeen oo ay u sameeyaan alaab hore sidoo kale waxa muhiima oo xusid mudan inaad ogaatid mashiinada ay alaabta ku isticmaalayaan ay ku sameynayaan productka workerska shaqaalaha jooga runtii warshadaha waaweyn waxaa jooga ilaa 100 qof iyo waxan waa wax yar waxaa jooga qaarkood 5,000 qaarkood 10,000 joogaan warshadaha waaweyn marka warshadaha ugu yaryar inta badan waxaa jooga ilaa 100 qof warshada hadday yartay 100 qof ayaa jooga marka 1,000 qof ka shaqeynayaan mashiinadii baa u dhammaystiray raw materialkii bay hayaan number 5 waxaad ogaanaysaa quality control koga departmentka quality control koga haddaba 5 qodob ama 4 qodob ayaa lagu hubiyaa quality control runtii waa mawduuc aad u ballaaran oo mustaqbalkan insha Allah muuqaalan ka soo sameyn doona haddaba quality controlka sidee aad u ogaanaysaa ama aad u hubinaysaa kow waxaad weydiinaysaa materialka ay ka sameynayaan shayga aad u baahan tahay materialada u imaada haddii warshada ay material ay meelaha ka soo gadato ama ka soo iibsato quality controlka waad iska eegaysaa waayo report buu leeyahay waxyaabo dhan baa jira checklist baa jira loo isticmaalo sidoo kale waxaad eegaysaa quality control procedure-kooga waa nooc quality control procedure-ka warshad walba waa different uu kala duwan yahay number 3 waxaad eegaysaa final report-kii quality control marka la sameeyo report baa la sameeyaa oo maxay ahaytoy checklist shayga waxa la leeyahay tusaalahan reportkii dhamaystirnaa shayga uu saxsan yahay shayga waxba ka dhiman shayga waa sida aduu report weey numberka u dambeeya waxaad weydiinaysaa iyagoo reportkooga xataa wax ku qoran iyagoo measure gareynaya ama iyagoo qiyaasaya size-kii weight-kii size-kii miisaankii waxyaabo badan oo magaranaysa haddaba maxaan kuu leeyahay quality control maxaan ugu fogaaday sababta quality control supplierka ama warshada quality control system aan lahayn waad iska ilaalinaysaa sababtoo ah meesha u dhimatay meesha ugu muhiimsan weeye quality control haddii uu supplierku ka meeraysto quality control aad baad uga taxadiraysaa sababtoo ah hadhow ma doonaysid order aad gelisay $50,000 ama $100,000 inuu xagga ku yaaco oo ku khasaaro qodobka 6aad waxaad sameynaysaa wax loo yaqaan third party verification waa maxay waxa jira company ka caawinaya in ay quality control ku sameeyaan alaabtii ku inspectoreyaan wixii aad waxba ka fahmi weydo maxay aad kala xiriidid tusaalahan oo kale alaabtii aad dalbatay iyo wixii isma laha ay wixii ka check-gareeyaan waa laga maarmaan qodobka muhiimsan weeyaan haddaba third party markaan ku leeyahay companiyada ku jira online-ka China ugu waaweyn waxa kamid ah company-ga loo yaqaano Chima QIM waa laga maarmaan qodobka muhiimsan weeyaan waxa kamid ah company-ga loo yaqaano Chima QIM aan soo dhigi doonaa magacooda insha Allah sidoo kale waxa loo yaqaano company-ga loo yaqaano SGS taas waa taa waayo waa company wax kale kama shaqeeyaan inspection kaliya ka shaqeeyaan number 2 local agencies
local agentiyo loo kala jira oo iyaguna hawshan ka caawinaya. Number 3 sourcing companies, annaga sourcing companies kambaniyada alaabta dadka u soo adeega oo anagu ku jirno product global ahaan anaguna waanu qabanaa inspectionka iyo hawlahaas. Number 4 freelancer waa qof suuqa iska jooga oo Chinese oo doonay oo waxa weeyaan dadka ka caawiya in alaabta u soo adeego. Freelancer baa la yiraahdaa. $200 ilaa $500 wax gaadhaya ayaa maalintii inspection lagu sameeyaa. Marka inspection la sameynayo alaabtii laga eegiyo, taas waxay ka caawinaysaa in aanay $100,000 aanay ka khasaarin lacagtaadina ay ku save gareysanto alaab fiican ku timaado. $200 ilaa $500 na waxa qaadanaya kambaniyadaan kor ku xusay. Waxay ka caawinayaan inay ku soo diraan sawir, waxay ka caawinayaan inay ku soo diraan video, waxay ka caawinayaan inay ku soo diraan compliance check waa quality control iyo waxyaabahan aan ka soo hadlinay iyo license iyo waxyaabo badan. Waxa muhiim oo kala sidoo kale waxa iyaguna laga maarmaan ah kambaniyada isku kalsoon ama warshadaha isku kalsoon ee waaweyn soo dhaweeyaan qofka markuu dhaha inspection man sameynaya waayo isku kalsoon yihiin. Maanta dad kalsooni qabto cid alle cid ku hor istaagsan ma jirto, laakiinse warshadaha aan waxba meesha ku hayn way ka caadoodan arrinka verification ka loo yaqaano aan imika ka soo hadalnay. Number 7 wixii aan ka soo hadalnay aan ku soo xusnay xag sare oo dhan isku geyso kadibna qaabka warshadii loo hubiyo samee noqoto inaad license-kii company-ga aad iska hubisid ama warshada haday noqoto videoyo lagu soo dirayo si fix si kala iyadoo wixii live ay tahay, haday noqoto video call, quality control haday noqoto quality control, reliability ay keentaa in qofka ku kalsoonaado macmiilkii aduna supplier ahaan aad maxay ka hesho sumcad fiican. qodob muhiim ah ayaan ka hadlayaa. Number 8 haddii supplierku hal qodob uu jabiyo oo waxaan soo xusnay kamid ah oo hal qodob uu ka soo bixi waayo, hal qodob oo kamid ah baaritaan samee. Waxaad isku daydaa inaad baaritaan sameysid zaida. 2 qodob uu ku dhaco uu ku fail garoobo waxaad sameysaa walk away, isaga tag. 3 qodob uu ku fail garoobo carar. Meelaha 3 qodob khalaas 3 qodob baad ka weyday waxaan soo xusnay warshada waad ka tagaysaa. Guntii iyo gunaanadkii waxaan jecelahay inaad ka faa'iideen maanta warbixintan ku saabsan qaabka China wax laga soo dhaafsado. Haddii aad muuqaalkan wuxuu ka faa'iiday fadlan waxaan ka codsanayaa in gambaleek furtid, like, share, subscribe si dad badan oo walaalaheen ay uga faa'iidaan adiguna aad ula socoto muuqaaladan soo update karno insha Allah channelkan. Gunaanadaya haddaad doonaysid inaad mistake-gaas oo kale ka baxsatid waxaad sameysaa qodobadan soo socda. Waxaad sameysaa evaluation ama qiimeyntii aan kor ku xusay oo dhan. Haddaad doonaysid video cusub ka soo sameeyo topic-yadan 4 topic-yan idinla wadaagi doono xag hoose ku soo qora kadibna comment soo qor 4 mowduuc mid kamid ah waxa xubaalan insha Allah video kan xiga inaan ka soo hadli doono. Koowaad waxa weeyaan sidee negotiation ama gorgortan loola sameeyaa Chinese supplier negotiation ama gorgortan markaad contract galaysid ama wax ka iibsanaysid see loo sameeyaa, sidee la isaga ilaaliyaa in scam ama Chinese supplier uu ku dhaco, sidee business contract markaad order weyn iibsanaysid business contract sidee loola deal garayaa ama sidee loo galaa, sidee alaabta loo check gareeyaa step by step. Mowduucii 4 mar labaad baan ku celinayaa. Mowduuca koowaad waxa weeyaan sidee negotiation loola sameeyaa. Mar labaad sidee scam kala la iskooga ilaaliyaa. Number 3 sidee business contract loo galaa. Number 4 sidee inspection ama alaab in la hubiyo loo galaa step by step. Insha Allah 4 mowduuc mid kamid ah comment ku soo qor ka jeceshahay ka loogu bato insha Allah ka loogu bato ayaan ka soo sameyn doonaa video kan xiga biidnillah. Haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like dhe, share, subscribe meel fogna sii gaarsiin. Insha Allah muuqaalo cusub oo xiiso leh ayaan ka soo diyaarin doonaa. aad baad mahadsantihiin.